السلام عليكم daawadayaal meel kasta oo aad joogtaanba waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeena xikmadaha. Xikmadeena ugu horeysa maanta waxa ay oranaysaa caqliga iyo carabku waxa ka dhaxeeyo xiriir caqsi isku ah mar walba oo caqligu yaraado carabka ayaa dheeraada. wabiyada marnaba uma socdaan caqsiga jihada ay ku wajahan yihiin. Isku day in aad u noolaato sida wabiga oo kale. Iska ilow wixii tagay diiradda saar mustaqbalka. si walba uu caqligaaga u sareeyo maalin ayuu qalbigaaga ku hogaamin doonaa dhanka doqonnimada. bani aadanka uma baahna wadooyin nadiif ah si uu u noqdo mid xushmad badan, balse wadooyinka ayaa u baahan dad xushmad badan si ay u noqdaan kuwa nadiif ah. noloshaada noqo sida laacibka oo kale ee noqonin sida garsooraha oo kale, maxaa yeelay laacibku waxa uu raadiyaa gool ama hadaf, garsooruhuse waxa uu raadiyaa qalad. guuldareeso bilowga waxbaad ka baranaysaa. ha guuldareysan dhamaadka, xanuunkeeda ayaad dareemi doontaa. quruxdu qofka 50% waxay ka timaadaa carabkiisa. bini aadanku waxa uu awoodi karaa in uu bedelo noloshiisa haddii uu awoodo in uu bedelo fikirkiisa. aqoontu waa waxa inoo hara marka aan ilowno dhammaan waxaan ku soo baranay iskuulka iyo jaamacadda. mar walba oo ay korodho aaminsanaanta iyo kalsoonida aad ku qabto naftaada, waxaa siyaada fursadaha aad ku xaqiijin karto guushaada.